cashirkeena tobanaad ee C language-ka waxaan uga hadli doonaa haduu Alle idmo operators iyo faa'iidada ay u leeyihiin C language-ka iyo waxyaabaha ay qabtaan iyo inta ay kala yihiin oo inta nooc oo operators ee ku jirta C language-ka lagu isticmaalo. Waxaan ognahay programmeska marka la sameynayo waxaa la isticmaalaa calculationskaasna waxa ay noqonayaan mathematical calculations ama logical calculations. Marka operatorska intaasba oo ay qabtaan oo shaqadooda waxa ay tahay in programka ama compilerka ay ka shaqeysiyaan u sheegaan nooca program ama waxa calculation ee la sameynayo inuu yahay mathematical ama inuu yahay logical. Waxaan marka hore fahmaynaa marka waa maxay operator. What is operator? An operator is a symbol that tells the compiler to perform a certain mathematical or logical manipulation. Operatorka waa calaamad tusinaysa compilerka u sheegaysa in uu qabto mathematical ama logical calculation. Yani tusaale marka ugu soo qaadano calaamadda additionka loo isticmaalo waa plus. Pluskaas marka programka la isticmaalayo waxay u sheegay compilerka meeshas in looga baahan yahay in laga qabto shaqo ah isku dar. Operators are used in programs to manipulate data and variables. Waxaa inta badan variableska ama datada la isticmaalayo si la isugu shaqeysiiyo operation loogu sameeyo waxaa loo baahan yahay operatorska. C language-kana waxa ay leedahay operators ayada ku imaada oo la yiraahdo built-in operators. Built-in operators oo C language ku imaada waxaa la yiraahdaa operators ilaa iyo 7 gaarayo ama buugta qaarna 8 ay dhaxan. Marka ayagoo dhan waa baran doonaa haduu Alle idmo. noocyada operatorska ama typeska operatorska waa arithmetic operators, relational operators, logical operators, piecewise operators, assignment operators, conditional operators, mathematical operators, waa special operators, conditional operators iyo special operators. Arithmetic operators dhowr nooc macnaha noqda ama pluska ama minuska iyo waxaas oo dhan waan ka hadli doonaa haduu Alle idmo. Relational operators ka sidoo kale waan ka hadli doonaa iyagoo dhan mid ayaan u faahfaahin doonaa. Tusaale waxaan noogu horeyn doono arithmetic operators-ka. Arithmetic operators-ka waa calaamadda pluska oo loo isticmaalo additionka inay isku darto two operands. Operand waxaa la dhahaa in program inta ku jirtid ama calculation inta sameynaysid laba eray waa inaad iska ilaalisaa. Mid koowaad waa operationka, midka labaadna waa operandiga lagu sameynayo. Operationka waa calaamada tusinaysa hawsha la qabanayo inay tahay plus inay tahay minus. Operandigana waa calaamadaas wixii shaqada ay ku qabanaysay ama values ha ahaadaan ama variable ha ahaadaan waxa meesha yaala oo la isku daraayo ama la kala jaraayo waxa la dhahaa operand. Muxuu marka arithmetic operators waa calaamada plusta oo additionka loo isticmaalo inay wax isku darto. Calaamada minuska oo la yiraahdo idina subtractiga. Calaamada calaamadahan oo waan naqaanaa times ama multiplication-ka calaamada loo isticmaalo. Calaamada division-ka loo isticmaalo. Calaamada qiimaha remainder-ka ku sheegta waxyaabaha division-ka marka sameysid remainder-ka soo hara ku sheegta oo la yiraahdo module. Calaamada marka laba operator waxa jirta buugta qaarna ay dhahan operators 8 type oo waxa jirta dhahan C language-ka ku jirto operators waxay marka arithmetic operators ka saarayaan increment operator iyo decrement operator. Laakiin buugta qaarna waxay leeyihiin arithmetic operators ay ka mid yihiin oo arithmetic operators oo ka mid yihiin laga saarin maadaama calaamadii pluska oo kaliya loo isticmaalay in increment ay sameyso. Marka plus hadii aad aragtid laba mar isku dar ma ahan micnaheedu waxa ay tahay value-gaas meesha ku yaala waa inaad ku kordhisaa qiimo 1 plus 1. Minus waa bilcaks ka jar qiimo 1 ama -1 marka laga jaro waa marka calaamada pluska waxay tusinaysaa isku dar laakiin calaamada pluska waxay tusinaysaa increment by 1 oo la yiraahdo in wixii lagu kordhiyo ama lagu daro hal in lagu daro. Calaamada minuskana waxay tusinaysaa in wixii meesha yaalay value-gaas laga jaro hal laga jaro. Relational operators waxa la dhahaa inta badan waa operators sida magaca meeshan ugu qoran ka fahmeyno waxay tusiyaan inta badan relationship waxa macnaha xiriir ka dhaxeeyo. Tusaale ka soo qaad
calaamadda hadda la yiraahdo comparison operatorka la yiraahdo oo equalka laba mar la isticmaalayo waxa ay tusisaa haddii laba operand ay qiimo isku mid ah wataan. labadaas operand calaamadda tusinaysa qiimahooda inay isku mid yihiin waa calaamadda comparison operatorka la yiraahdo ka mid ah relational operatorka. calaamadda not equal to waxa ay jeegraysaa haddii laba tusaale ahaan oo value aysan isla sinnayn qiimahooda ama isku mid ahayn. greater than haddii qiimaha ay kala weyn yihiin mid ka mid ah ay weyn tahay. less than calaamadda haddii qiimo mid ka mid ah uu yar yahay. greater than oo equal to haddii ka weyn tahay ama ay la eg tahay. less than oo equal to haddii ka yar tahay ama ay la eg tahay. intaanoo dhan waxaa loo isticmaalaa waxa qasab ah mar walba in la helo laba operand, labadaas operand oo la isku barbar dhigaa in la helo. logical operators waa operatorada loo isticmaalo bitska ama 0 and 1. operatorska waxaa loo isticmaalaa 0 iyo 1 waana logical. waxaa la dhahay marka calaamadda ampersandga waxaa la isticmaalaa laba mar. ampersandga marka calaamadda waxa ay leedahay haddii calaamadan labada operand oo la isticmaal muxuu ahaa labada bits oo la isku daray ama tusaale ahaan oo kale la isku dhuftay waxa ay soo saaraya inta badan false haddii mid ka mid ah uu yahay false haddii labadooda laakiin ay yihiin true. labada shay macnaa tusaale ka soo qaado kale waxa tusaale usoo qaadanaa hadda 0 iyo 1 programka waxaa la dhahaa 0 waa false 1 waxa uu yahay true. haddii tusaalaha programka loo isticmaalo 1 and 1 waxa ka soo baxa 1 laakiin haddii loo isticmaalo 1 and 0 waxa ka soo baxay 0 0 and 1 haddii la isticmaalo waa 0 haddii laba 0 la isticmaalana waa 0 oo micnaheedu ay tahay false markasta soo bixaysa macnaha ilaa iyo marka laga soo tago kaliya labada dhinacba inay noqdaan 1 and 1 inay noqdaan oo muxuu ahaa true oo soo baxo. laakiin or calaamadda ku xigta waxaa la or oo ah verticalka hadda ujeedno dhanka vertical ahaan ay soo waran tahay waana labo. taas marka waxay soo saartaa inta badan true sababtoo ah haddii mid ka mid ah haddii uu noqdo muxuu ahaa true. tusaale waxa isticmaashay 1 and 0 waxaa true ah hadda 1 0 waa false. marka jawaabta meesha ka soo baxayso mar walba waxay soo saartaa iyada true. marka calaamad kale waxaa jirto oo saddexaad oo la yiraahdo not logical not la yiraahdaa taasoo mar walba la mid ah false waxay soo saartaa calaamadaas false waxaad ka hormariso waxa ay noqonayaan false. intaan operatorska waxaa lala isticmaali karaa muxuu ahaa conditional operators hadda noo soo socdo waa lala isticmaali karaa ayaga kaligood waa la isticmaali karaa oo logical ahaan iyagoo la isticmaalayo laakiin bits 0 and 1. waxaa jirta bitwise operatorska loo yaqaano bitwise haddii aan sii fasirno waa bit oo 0 and 1 ah wise oo ah nidaamka lala xiriiriyo bitska ama iyadoo loo considerationka ama tixgelin la siinayo bitwise operatorska waxaa laga wadaa micnaheedu waxay tahay waxaa la isku dhufanaa laba tiro laakiin labadaas tiro waxa ay tahay bit oo 0 and 1 waxaa la isku daraa laba tiro 0 and 1 laba tiro hadday calaamad qaataan oo isku mid ah 1 iyo 1 hadday wataan waxa mar walba soo baxay leedahay 0 bitwise exclusive al laha exclusive or waliba iyo shifting operators shifting muxuu ahaa bits marka lagu sameeyo gaar ahaan left shift iyo right shift marka programka lagu sameeyo oo ah in hal bit mar walba dhinacaas midig ama dhinaca bidix loo soconayo mar walba waxay ku xiran tahay dhinaca adiga aad u wadid left shift haddii aad tirahdid waxa hal bit macnaha u soconay muxuu ahaa dhanka bidix haddii aad tirahdid left shift waxa u guureysaa ama u shift gareynaya ama u sikanaya hal bit dhinaca muxuu ahaa midig. bitwise marka waxaa inta badan loo isticmaalaa bits waxayna qaabilsan yihiin isku dar isku dhufasho labada bit hadday isku mid noqdaan qiimaha soo baxaya waxaa loo qaadanaa 0 iyo shiftingka oo ah right iyo left dhinaca bidix iyo dhinaca midig in mid mar walba aad hal bit u isticmaali kartid hal bit ka badan oo isticmaali kartaa qasab ma ahan laakiin waxa ugu yar oo laga bilaabo hal bit ah laba bit waa dhanka bidix oo socon kartaa programka marka isticmaalaysid laakiin bits 101010 tusaale ahaan marka isticmaalaysid oo aad rabtid hal god inaad ka guurtid adoo dhanka bidix u soconayo ama hal god inaad ka guurtid dhanka midig u soconayo hadaa rabtan waxaa ka guuri kartaa 10 god 4 god wixii markaas aad haysatid oo bits ah bitwise operators waxaa isticmaali doonaa insha Allah.
assignment operators waxaa loo isticmaalaa assignmentiga ama in ay siiyaan qiimo ayagoo u soconaya dhanka leftiga mar walba waxay ka socdaan from right to left tusaale calaamada ugu horeysa waxaa la dhahaaba assignment operator waa equalka waxay qiimo siisaa lagu dhahay in rightska operandiga rightska jira mar walba qiimihiisa waxaa la siiyaa kan leftiga ah dhinaca oo leftiga loo soconaa marka plus equal to waxay la mid tahay markii aad isticmaalaysid tusaale waxay labo value ama labo variable markaa isticmaalaysid bedelkeeda waxaa isticmaali kartaa value iyo variable adigoo isticmaalaya calaamadan muxuu ahaa assignment operatorka gaar ahaan plus equal to waxay marka sameynayaan value-ga markasto operandiga ama muxuu ahaa kan value-ga lagu shaqeynayo ee jira dhanka right-ka ee midig jira ay waxay ku dartaa left operandiga waxayna qiimaha ka soo baxay isku darkaasi ugu dambeyn finalka ah waxa ay u wadaa ama ay siisaa dhanka leftiga ah minus operatorka minus equalkan waa sidoo kale times equalkan waa sidoo kale divisionka oo ah divide equal to waa sida modulekan waa sida mar walba right operandiga waxaa lagu daraa ama laga jaraa ama lagu dhufanaa ama loo qaybinaa mar walba saa u wadid operatorka isticmaashada ku xiran tahay left operand waa soo sheegnay kabacdi markaas wixii qiimo ka soo baxo waxaad siinaysaa dhanka bidix variableka kugu sugan aad muxuu ahaa qiimaha siinaysaa operand hore usoo sheegnay waxaa la dhahaa mar walba value-ga ama variableka meesha ku yaala oo operatorka aad ku samaynaysid ama operationka uu ku dhacayo pluska minuska logicalka wixii walba oo aad isticmaalaysid operators ka mid ah programka markaas aad ku jirtid qiimahaas markaas aad wax ku samaynaysid waxaa la dhahaa operand conditional operatorka loo isticmaalo inta badan shuruudaha laba qaab uu noqdaa mid muxuu ahaa waxaa la isticmaalaa marka hore syntaxiga waxaan dhan arkaynaa iyagoo program ah conditionka marka hore soo qaadanaya conditionka markaad soo qaadatid tusaale hadda wuxuu dhahay condition question mark waa la socotaa syntax waa haddii conditionkaas uu noqdo true waa qiimahaas waxaa ku store garaysaa x hadduu false noqdona y ku store garay ama x noo daabac hadduu qiimaha true noqdo hadduu false noqdona waxaa noo daabacdaa y noo daabac marka waxaa la isticmaali karaa sidoo kale haddana condition if condition waa la isticmaali karaa oo muxuu ahaa if haddii macnaha conditionkaas uu true noqdo saas isoo bixi haddii true false noqdona qaabkaas isoo bixi mar walba marka conditional operator isagoo program ah oo muxuu ahaa faahfaahsan mid walba operators ka mid ah arithmetic assignmentiga logicalka bitwise condition waxaan oo dhan waa sameynaynaa marka hore laakiin conceptiga ayaa waxa uu yahay conditional operatorka in uu ka hadlo marka shuruud ay imaato tusaale laba shay waxa ay ku xiran tahay shuruud haddii x iyo y ay isla mid noqdaan waxaad siisaa qiimaha z x iyo y qiimahooda oo la isku daray waa shuruud meesha ku jirto goormee marka x iyo y isla soo barbardhigi kartaa waxay isticmaalee calaamadii muxuu ahaa assignmentiga waxaa isticmaalaysaa relational operatorka calaamadii comparisonka iyo sidoo kale condition operator oo ah if condition laba operator waxaa ku isticmaalaysaa inaad ku samaysid conditional operator meesha uga baxayna operatorska ugu dambeeya waxaa la yiraahdaa special operators waxa uu qabtaa shaqo ah sida size of operator kaasoo mar walba soo celiya size-ka variable-ka aad isticmaalaysid data type-kiisa haddii integer uu yahay integer size uu ku soo celinaa haddii muxuu ahaa uu yahay variable-ka float uu yahay float ku soo celinaa mar walba size-ka waxa uu yahay data type-kiisa ayuu u fiirinaa kabacdina waa uu soo celinaa ampersand calaamadaas waxaa mar kale loo isticmaali karaa iyadoo operator ah gaar ahaan special operator ah waxaa loo isticmaali karaa in ay soo celiso addresska ama variable-ka memory-ga meesha uu ugu jiro addresska ee leedahay in uu soo celiyo tiro ahaan integer ahaan in uu soo celiyo ayaa loo isticmaalaa iyo calaamada oo multiplication-ka oo meeshan u isticmaalayno pointer ahaan inay point gareyso value memory ku jiro in ay point gareyso qiimaha x tusaale memory-ga markii la sheego addresska memory-gaas qiimaha ku jiro inay soo sheegto pointer operator marka waxaa meesha cashirkan tobnaad maanta ku qaadanay operatorska iyo typeskiisa
sida arithmetic operator, relational operators, logical operators, bitwise operators, assignment operators, conditional operators, special operators. marka meeshaasaan kusoo gabagabaynaynaa wabilaahi towfiiq.